السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم أصحابتا. إشفارسا أوسلندا أما سوغلوتيجي مذوباي ريفيو. maanta waxaan dib eegis ku sameynaynaa filimkii gaabnaay soo galootigii madoobay ama Ishfarsa Oslenda. waxaa qoray direct gareeyay waxaana ka jirayo anigoo ah Isirmaal Dami. Synopsis: maalin maalmaha kamid ah waxaa dhacday in nin Jarmal ah oo cunsuriyay wiil soo galooti ahay oo dariskiisa ahay kalarkiisa madow dartiis. وريا هوي ويجي مذوبة دقن ما تايا ذي كان يشكله. haddii aad horay u fiirsanin filimkayga waxaad ka heli kartaa channelkayga Dami Films ama videoga qaybtiisa hoose waxaad ku dhufataa linka hoose. mahadsanid. Title: soo galootigii madooba. waa wiil madow muslim ah haddana soo galooti ah. waad dareemi kartaan sababta loo cunsuriyay wiilkaas, laakiin wiilkii madooba albaay ama madoobe abarteeda ka taa wala asxaabay madow wala iga khalayno ana ujeedin kalarkii cadaan man dhaha may chocolate iska dheebo, laakiin haddii si kale u fiirin gaalada u maleeyaan inaa madoow waayahay. laakiin wiilkii madooba sidoo uga falceliyay cunsuriyadii lagu sameeyay. Plot structure: waxaa soo baxay subax ayadoo Isirmaal oo ahaa wiilka dariska la ah ninka Jarmalka ah. Isirmaal wuxuu u socdaa iskuulka wuxuuna bartaa afka Jarmalka wadankan uu ku cusub yahay, inkastoo Jarmalka wuxuu uga bilaabay haddana si fiican luqadii uma yaqaano. marka asagoo soo baxayo jarjarada kasii degaya waxa cunsuriyay ninkii odaga ahay oo aflagaadeyna erayo badan oo san inuu yaqaanay in kale aan isku jirno isku dhex dara, laakiin asagii waxna ma dhahayo oo ka sii socona. laakiin Isirmaal caadi odaga uu ku yiri waxa uu ka qabtay laba eray oo ahay Scheiße Ishfarsa, taasoo maskaxdiisa ka go'ayay ilaa iskuulkii uu ka tago. iskuulku markuu tago casharkii dhig uma hayo Isirmaal oo iska fadhiya. markii casharka dhamaada macallimadu waxay leedahay yaa su'aal qabo, asagina wuxuu weydiinaa bishti doomdam iswayser micnaheeda ayaan rabaa inaan ogaado. doqon miyaa tahayne? Isirmaal galabtii dambe markii uu iskuul ka soo noqday oo gurigiisa soo aaday sida caadada ahayd asagoo maaragtay baaskiil ku socdo markuu guriga imaaday odaygii meeshiisa loo kasii bilaabay ciyaartano oo sii cunsuriyay oo sii aflagaadeeyay. markaan Isirmaal waa xanaaqsan yahay oo fahamsan yahay odaygan inay cunsuriyad ka tahay waxaan ku hadlayo, haddana waa loo soo fasiray erayadu ku dhahay. wuxuu isku dayay inuu Isirmaal xanaaqa marka uu ka falceliyo odayga cunsuriyadiisa iyo xumaantiisa, laakiin maxaa dhacay? Climax: haddana maalin kale Isirmaal asagoo iskuul ka imaaday wuxuu meeshii ka waayay odaygii meesha fadhiisan jiray dariskiisa ahaa. yani idinka ilaawin oday wuxuu curiyaan kursi ku fadhiyo oo markasta cunsuriyay jiray. Isirmaal maanta odaygii markuu meeshii ka waayay wuxuu dareemay wax qaldan yihiin. wuxuu istaagay odaygii gurigiisii wuxuuna arkay odaygii oo dhib ku dhacay. uu labalabay wuxuu yiri macaawisa ma soo iska dhaaftaa bal aan aragna Isirmaal wixii ugu dambeyn go'aan ku qaatay iyo wixii uu soo biyay. Resolution: ugu dambeyntii odaygii waxaa la geeyay isbitaal waa la daaweeyay. subaxdii dambe markii uu soo naaxay waxaa la joogtay gabadhii kalkaalisada ahayd ee gurigiisa ku caawin jirtay. markuu soo naaxay dhakhtarku wuxuu ku dhahay dhakhtar waatana gabartii isoo badbaadisay oo isoo caawisay. laakiin sheekada taas way ka bedelneed. yaa keenay odayga isbitaalka? yaase soo badbaadiyay? waayahay filimka markan wuxuu maraa dhammaadkii iyo gabagabadiisii. odaygii cunsuriga ahaay wuxuu ogaaday inuu isbitaalka keenay oo soo badbaadiyey ninkii madowga ahaay ee dariskiisa ahaay ee muslimka ahaay ee uu cunsuriyay jiray. odaygu wuu ka shalaayay waxyaabihii uu ku dhaqmi jiray ee qaabdaraada ahaay ee asaga iska dhaadhacsiiyey. markaana waxaa u caddaatay in soo galootiga dhammaan aysan isku mid ahayn oo qof walba waa sida Ilaahay u abuuro. qof walba wadan walba waxay leeyihiin dad fiican iyo dad xun. odaygii calaayi xaalin aakhirkii ilimaha ka soo daadatay wuu ooyay. wuxuuna cafis ka dalbaday Isirmaal oo ahaa wiilkii dariskiisa ahay oo sida xun u dhaqmi jiray maadaama xumaantiisii uu wanaag ugu bedelay. runtii qisada filimkan waxay ku tusaysaa in cunsuriyadda ay ka jirto meel walba oo ka mid ah adduunka. Mareykanka waa ogeedeen George Floyd wiilkii madowga ahay ee ninkii askari ahay jilibkiisa ku dilay asagoo neefsala. Europe
iyo sidoo kaleeto waddankeena xataa way ka jirtaa anaga dhexdeena is cunsuriyeen marka sidaas darteed maaha cunsuriyadda mid dhammaanayso laakiin waxaa fiican inaad uga falcelisid si taban ama positive ah isla markaasina qofkii ku cunsuriyey aad u dulqaadato taasina waxay keenaysaa inay bulshada isku soo dhawaadaan oo meeshaas ka abuurmato isdhexgal bulsho filimka iyo meelaha lagu jilay filimka bilowgiisa odayga iyo isirmaal labadaba waa isla sameyn yihiin oo waxay saaran yihiin dabaqa labaad qaybta labaad ee jaranjarada isirmaal markuu albaab kasoo baxo laakiin markuu odayga cunsuriyeynayo isirmaal wuxuu joogaa dhulka uu ka hooseeya odayga macnaheedu waxay tahay taas inuu odayga ka koreeyo isirmaal uuna u arko nin liidan oo ka hooseeya inuu yahay maadaama uu nin madow soo galooti oo yahay laakiin nolosha maalinba waa mar tilka alayaamu nudaawiluhaa uu yidhi ilaahay qofna ha liidin intaad nooshihid waxaa laga yaabaa qof kaa koreyn jiray shalay oo adiga hoos u fiirinaysa oo liidaysay inuu berri kaa kormaro oo adigii aad maaragtahay kor u fiirisid sida filimka idinkaga muuqato adiga fiirsanaya filimkan haddii saan camal kugu dhici lahayd maxaa suubin lahayd haddii qof uu kugu cunsuriyey lahay afkaaga dhaqankaaga diintaada iyo kalarkaada sidee uga falcelin lahayd aragtidiina waa noo muhiim ee qaybta commentiga ama faalada noogu reeba ma jeceshahay inaad filim qorto ama direct garayso haddii ay jawaabtaada haa tahay waxaad igala soo xiriiri kartaa emailkayga millibediscreationist@gmail.com oo hoos ku qoran facebook pagekayga oo ah isirmaal daamey si aan fikrado isku dhaafsano oo aan wax u kala faa'iidno meelaha filimka aadka looga helay ee dadkii fiirsaday ama haddii ahaan lahayn jarmal ajaanib kale iyo soomaaliba ay ka falceliyeen waxaa ka mid ah wadiyaa hoy qaxooti wili waa soo socotaa miya wadiyaa bax meeshii ka timid u noqo waddankaaga u noqo annaka madooda waa nugu bateynaan kaleeto sida kale dadka aada uga heleen markaan jarjarada soo fuulayay sida odayga u fiiriyey oo maaragtahay cunsuriyadiisa uga falceliyey sidoo kale maclimadda su-aashii aan weydiiyey si uga jawaabtay macnaha iyadoo ka dheeraanayso in maaragta odayga ay la jirsato jarmalka ahay isla markaasina anigina ay iga qarinayso inuu ninkan caaye ay si dhexdhexaad ah u hadashay mahadi ha ka gaartee saaxiibkay marna macalinkayga macalin jk intaa ka salaama jk cali oo maaragtahay iyo tiimkiisa filinkayga ka qayb qaateen inay af soomaali ka dhigaan idiina suurtageliyeen maadaama filinka aan af jarmal ku suubiyey dib u eegistii maanta aan ku suubinaynin filinkayga gaabnaay ee soo galootigii madooba maanta meeshaasaan ku joojinaynaa fadlan laag noo saar haddii aad ka heshay muuqaalkan sheerta ha ka iloobin commentigeena kasoo bixi oo aragtidaada kasoo dhiibo waxaa meesha ka marinayn subscribe-ka daamey films si aan muuqaalo badan idin xiisa geliya idinkugu keeno aada u mahadsantihiin